السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح مالين حلي كستو جوكتان وناكسنا وعن بايد لنا هي إلهي سبحانه وتعالى هيدي بركة جودان مدى سوماليات أفريقيا إيشيا قاردها كلا دونكا أمريكا يوروب ميل كستو جوكتان وحان لنا هي عربها جودان وان السلام بالشدة الصوماليات سلام كلي اللابا آديات بدي سلام سيتيهين عو بريق عافمات كهرقلك iska warrama guud ahaan waxaan filaya inaad fiican tihiin salaan kadib walaalayaal runtii aad iyo aad baan idin salaamay waa 16 bisha June ama bisha 6 sanada 2022 runtii waa maalin khamiis ah live-ka kuma badni waxaan u soo galay walaalayaal arrin aan ka seexan waayay runtiina xalay hurdo badan ma seexanin aad iyo aad baan beerka jirka iyo runtii damiirkuba ii ololahayay ii xanuunahayay waxaan runtii shalay u tagay gabar Soomaaliyeed oo magaalada Gaarisa ku siracsan ku xanuunsan ku rafaadsan hooyo haysata 6 caruur 4 sano labada kaliyood laga dhaqahayo isbuuci 2 jeer kaliya laga dhaqo isla markaana runtii silac badan ka muuqdo sidoo kale luka jaban xanuunka bareershirka ama dhiikarka iyo sidoo kale macaanka sokorta qabta labada xanuun qabta luka jaban rafaad iyo silac badan ka muuqdo hooyadaasi runtii waxay ka dhalatay qoys danyara waxba awoodin waxba haynin walaalkeed baa u ballan qaaday inuu kale u bixinayo labada kaliyood labadu way fariisteen walaalkeed maadaama uu u ballan qaaday inuu kalida u bixinayo lacagta kalida lagu bixinayo waxa la waa 1 milyan iyo 800 ama 18,000 oo dollar sidaas darteed waxba ma haysato waxa ma heli karto shilin ma heli karto silac iyo saxir badan ma ka muuqato habeen ma seexato maalin ma hargasho shalay isbitaalka Allah soo lagu dhaqayaan ku booqday silac badan ma ka muuqdo xalay muuqaalkeeda soo dhigay sawirada soo dhigay marka walaalayaal waxaan u baahanahay 50 qof oo min $30 bixisa 50 qof oo min $30 bixisa yaan u baahanahay noo bilowda arrintaasi dad baan la soo xiray dad baa bilaabay laakiin waxaan rabnaa arrintaas inuusan maanta gabal ka dhicin xalay waxba badan ma suuragelin xilli dambaan soo dhigay maanta waxaan rabaa arrintaasi in aan ku dhaqsano inaan ku dadaalo calaa qof $30 waa 3 lacagta Kenya maaragtay soo dir numberkan iyo magac meesha ku qoran ku soo dir soo boobsiya aan boobsiino waan kala qaadaynaa runtii kun ama $10 daan waa 20,000 waa 20,000 qof oo min maaragtay $10 laakiin yar baan maaragtay isku saaraynaa $30 waxaan u baahnay 2 qof 200 qof oo min $30 waxaan rajeynaynaa inaad ay fududahay inaad ka qayb qaadan doontaan si sheegay muuqaalkan fadlan arrintan yaana yareysanin waxaad qiyaastaa hooyada walaasha xaaskaada gabar kula dhalatay in adeerta oo 4 sano kaliya laga dhaqayo wax lagu dhaqan lahaynin oo kaliya loo bedelaan rabo oo waxba haysanin hooyo haysata 6 caruur naafa luka jaban runtii xanuunada kala duwan qabta sida sokorta iyo dhiikarka waxaad qiyaastaa adiga maxaad sameyn lahayd maxaad dareemi lahayd hooyo walaal in adeer in abti in eedo wax ku tari malaha marka waxaan leenahay aan ka qayb qaadanaa gurmano fadhigaan ka kacno si sheegay muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.